عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانال كان نقدر ونيسان و SYL جنال ما أنتوا حندافر دونا برنامج كمرتئي ماديس waxa uu alaaba ka hadli doonaa murtidii macaaneyd ee dalkeena inaan soo noolayno iyo maadayska oo ah waxyaabo nolosha la xiriira oo maadays ahaan aan u soo dhaxgelin doono haduu Ilaahay dhaho. barnaamijka murti iyo maadays waxaad isbuuciiba mar ka daawan doontaan ama sitimaankiiba mar ka daawan doontaan SYL Channel Soomaaliyo laba kusoo dhawaad barnaamijka murti iyo maadays maanta waxaan ka hadli doonaa qaybtiisa saddexley. maanta waxaan bilaabi doonaa qaybtiisa saddexleyda koowaad. saddex waa lagu duceystaa: xurnimo joogto ah, xoolo xalaal ah iyo xaas raaliyo ah. saddex waa lagu duceystaa: xurnimo joogto ah. haddii aysan xurnimo jirin wax hagaagay oo horumar ah ma jiraan. waxaa meesha ka baxayo taladii iyo maamulkii. sidoo kale Soomaalida waxay dhahdaan gobannimo gaajo leh waxay ka wanaagsan tahay gunnimo oo dhereg leh waxaa ka wanaagsan gobannimo gaajo leh. adoo xor ah oo gobannimo haysta in aad gaajootid ayaa kaaga wanaagsan adigoo lagu gumaysanayo oo gun ah inaad aragto. haddaba Soomaalida waa dareemaysaa halka ay ka taagan tahay xornimada. xoolo xalaal ah hadane xoolaha waa muhiim, laakiin xoolo xaaraan ah way ku gubaan maahane raaxo kuma heshid, nolol iyo nasteexana kuma heshid. haddaba xoolo xalaal ah ayagana waa lagu duceystaa. xaas raaliyo ah. haddaba hablaha waa muhiim oo waxay dhahdaa Soomaalida halka ay ka taagan tahay. haddii aad fiirisid halka ay ka taagan tahay Soomaalida gabdhaha waxay dhahaan nin kastoo horumar gaaray naagtiisa ka dambaysa. haddaba xaas raaliyo ah, xurnimo joogto ah iyo xoolo xalaal ah waa lagu duceystaa. nolosha waa intaas. saddexleyda labaad saddex baa guusha kaa xigta. guuldarro baa kaa xigta. samir baa kaa xiga. ujeedo adag baa kaa xigta. haddii aan ku dul istaago halkaas, guuldarro baa kaa xigta. waxay dhahaan Soomaalida qof aan guuldarraysan ma guulaysto. waxay dhahaan sidoo kale guuldarrada waa cashar ee ma aha quusasho. marka guuldarro baa kaa xigta. markii aad guuldarrada soo dhadhamisid, meesha lagu fashil maayo iyo meesha lagu guulaysanayo markaad soo aragto bay guusha ku xigtaa. samir baa kaa xiga. haddaba waa guuldarraysatay haddii aadan samrin oo aadan fadhiga ka istaagin waad kuftay. haddii aadan ka istaagin fadhiga oo aad samrin ma guulaysanaysid. ujeedo adag baa kaa xigta. wuxuu ka wadaa qorshaha haddii uusan qorshe jirin iyo qiirad, wax guul ah oo aad gaaraysid ma jirto. wax nolol ah oo aad nacansanaysidna ma jirto. wax horumar ah oo aad gaaraysidna ma jirto. haddaba wuxuu leeyahay ujeedo adag baa kaa xigta. waa muhiim. saddex laguma ciyaaro. saddexleyda saddexaad wuxuu leeyahay saddex laguma cayaaro. dareen laguma cayaaro. diinna laguma ciyaaro. dadnimana laguma ciyaaro. haddii aan ku dul istaago halkaas, dareen laguma cayaaro waxay tahay muhiimadaasi. dareen laguma cayaaro. qofka inuu farxo ama murugo waa wax iska caadi ah oo noloshaba ah. haddaba markii uu qofka kuu sheegto inuu murugaysan yahay, ha farxin, ha qoslin. isku day inaad la tiiraanyootid oo aad wax fahansiiso oo aad u naseexayso. marka uu faraxsan yahayna la farax oo la damaashaade ha murugin. haddii kale meesha waxaa ka imaan karo inuu qofka kuu fahmo inaad ku jeesjeesaysid ama inuu kuu fahmo inaad xaasis ku tahay. intaasna diinteena kuma wanaagsana oo diinteena ma ogola.
diinna laguma cayaaro wuxuu ka wadaa diinta wax lagu ciyaari karo maba aha oo waa wax ilaahay soo dejiyey oo aan waxna lagu dari karin waxna laga nusqaamin karin haddaba laguma ciyaaro oo in lagu dhaqmo ayaa waajib ah dadnimana laguma cayaaro taasina wuxuu ula jeedaa dadnimana laguma cayaaro qofka marka uu dadnimadiisa kuu soo bandhigo in aad ku ciyaartid lama rabo qofka marka aad dadnimadiisa iyo sharafkiisa aad isku day inaad ku dheesho aad ku cayaarto halkaas waa halkii uu xariirka ku go'i lahaa qofka marka uu damiirkiisa iyo dhiiggiisaba adigu kuu huri karo inaad wax ciyaar ah oo qaldan inaad adigana ku dhumis waqtigiisa ma aha haddaba dadnimana laguma cayaaro halkaas ayuu kala jeedaa oo waxaad adiga u baahnayn inaad walaalkaa u dhaba gashid oo u geed fadhiisatid waa wax laga fiican yahay 3 waa buur dahab ah 3 waa buur dahab ah aqoonta waa buur dahab ah jacaylka dhabta ah ee la wadaagana waa buur dahab ah dal nabadaysanna waa buur dahab ah qofka marka uu hanti haysto way dhammaantaa hantidiisa laakiin ma dhammaato aqoonta uu qofka leeyahay waayo waa wax qofkaani ilaahay ku shubay asigana uu dadaal iyo hufnaan dheeri ah uu la imaaday aqoontana qofka uu leeyahayna waa buur dahab ah wixii qaldan iyo wixii wanaagsan ayuu kala saari karaa jacaylka dhabta ah ee la wadaagana waa buur dahab ah dad badan Soomaalida waxay dhahdaan jacaylka waaba nolosha marka qofka marka uu ku jecel yahay oo jacaylkan adna aad jeceshaasna uu ku jecel yahay ee meesha wadaag uu ka jiro waa buur dahab ah oo dad aan isnacbaysan ee noloshooda ku faraxsan ayaa meeshaasi ka muuqda waxaana ka soo baxaya gun wanaagsan haddaba jacaylkana waa buur dahab ah dal nabadaysanna waa buur dahab ah markay nabad jirto oo dhulka ilaahay nabad ka dhigo dadkana ay dadaal sameeyaan oo ay nabadooda ku dadaalaan waa buur dahab ah oo qofkii shaqaysan karana waa shaqaysan qofkii dawarsan karana dawarsan meeshaas waxaa ka imaanaysa nolol lagu qanacsan yahay meeshaas waxaa ka imaanaysa gobannimo guud iyo gobannimo shakhsiyeed ama qofeed haddaba dal nabadaysanna waa buur dahab ah daawadayaal halkaa inoo joogo barnaamijkeenii maanta oo aad nagala socoteen haddaba barnaamijkan wuxuu ahaan doonaa barnaamij aad sitmaankiiba mar kala socon doontaan kanalka SYL sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala